waxaa muddaba ka socday labadii toddobaad ee ugu dambeeyey magaalada muqdisho ciyaarta lagdanka gacanta oo ku cusub Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa doonaya in ay soo bandhigaan muuqaalka wanaagsan ee dhalinyarada oo aysan ahayn oo kaliya kuwa dagaalada ku jira. Wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray. kaahiye iyo iikar oo kala matalaya degmooyinka Shibis iyo Yaaqshiid ayaa ku tartamaya galabta lagdanta gacanta oo ka dhacaysa degmada Waabari. waa muuqaal ku cusub magaalada Muqdisho oo soo kabanaysa. xiisaha lagdanta gacanta ayaa ah in aan la qiyaasi karin waqtiga ay qaadanayso in la kala adkaado. afar ilbiriqsi gudahood ayaa lagu kala baxay. balse guulaystaha ciyaartan oo ah macallin jirdhis waxa uu leeyahay hiigsi fog oo lagdantan ah. inaan ka tuso in ay jiraan dad awood leh oo tartami karo oo am wrestling qayb gal am wrestling-kan waa ma ahan kaliya wax magaalada ku kooban waa wax adduunka dhan laga ciyaaro champions laga ciyaaro marka sidaas aan ugu soo qayb galay inaan hiigsi dheer sii gaaro. 16 dhalinyaro ah oo kala matalaya degmooyinka Muqdisho ayaa ku loolamaya tartankan. ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay waxa ay ku sheegeen in ay tahay muujinta muuqaalka dhabta ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed. waa barnaamij ka turjumayo muuqaalka nabadda ee magaalada Muqdisho. hadda markii ay dhacdo in qof uu yiraahdo xagee ka timid Muqdisho waxa loo yaqaanaa dad oo aanan jirkooda dhisan always slim xogaa yaraata laakiin alxamdulillah ma sha Allah waxa arkaysiin waa dhalinyaro dalkoodii hooyo jooga jirkooda dhistay kuna tartamaya lagdanta gacanta. tartankan waxa uu arkaa kan ugu fiican oo yahay dhalinyarta inay sameeyaan. dhalinyartan waxa uu la tari lahaa inay dagaal aad lahaayeen inay tartan noocan oo kala ah inay ka qayb galaan. ciyaartan oo shacbiyad badan yeelatay waxa ay soo jiidatay dhalinyaro badan oo rag iyo dumar isugu jira oo galab walba u soo daawasho taga kuwaasi oo qaarkood ay ku dhiirigelisay in ay ku biiraan machadyada jirdhiska. walaahi horta ani ma aadan jim waligay laakiin farqi inuu dhaxeeyo ujeeda muuqaalka jirka sidoo kale awoodda gacanta oo la isku dhigaayo sida loo kala jir weyn yahay la isku dhigayaa meesha. dhalinyarada ubaxa caasimadda oo soo qaban qaabiyey tartankan waxa ay ka leeyihiin ujeedooyin dhowr ah oo ku kulansan isdhexgal bulsho iyo soo celinta nabadda. waxaan suurtagelinay inaan 16 dhalinyaro aan shacabkeena barno tartanka waxyaabaha aan higsanayna waxay tahay oo aan rabno inuu gaaro in lagu bedelo qabiilkii colaadii iscolaadintii nabad iyo isdhexgal bulsho in lagu bedelo. jiilka yaryar ee soo baxaya ayay ciyaartu si gaar ah u soo jiidatay taasi oo uga dhigan madadaalo iyo ciyaar cusub oo ku soo biirtay liiska ciyaaraha Soomaalidu xiisayso.